jamhuuriyadda Faransiiska oo afka ugu yeero Republique Française waa dal ka mid ah dalalka ku yaala galbeedka qaaradda Yurub. Faransiisku waxa uu ka kooban yahay dhul kala fog iyo jasiirado aad uga fog dhulweynaha Faransiiska. waxa kale oo Faransiiska ka mid ah halka loo yaqaan Faransiisku iyo jasiirado aad u badan oo cidhifyada caalamka ku yaala. dadka wadanka Faransiiska u dhashay waxa ay wadankooda ugu yeedhaan Exochan oo macnaheedu tahay lix geesood. wadanka Faransiiska waxa uu xuduud la leeyahay wadamada midowga Yurub iyo boqortooyada Britain, Belgium, Luxembourg, Jarmalka, Switzerland, Talyaaniga, Monaco, Andorra iyo Isbaaniya. sidoo kale waxa uu Faransiisku xuduud la wadaagaa wadamo ka baxsan qaaradda Yurub sida Brazil, Suriname, Netherlands iyo Antilles. Faransiisku waa mid ka mid ah asaasayaasha midowga Yurub waana wadanka ugu weyn midowga Yurub. sidoo kale waxa uu Faransiisku ka mid ahaa xubnihii aasaasay qaramada midoobay. waxa kale oo uu ka mid yahay xubnaha rigliga ah ee golaha ammaanka. inta badan dadka Faransiiska ahi waxa ay haystaan diinta Masiixiyada waxa ku nool sidoo kale dad gaadhaya ilaa 5 milyan oo haysta diinta Islaamka. taariikhda Faransiiska haddaan yar eegno inta badan Faransiiska waxa ay dhulka ka qabsadeen dadkii lagu magacaabi jiray Gaul oo asal ahaan ka soo jeeday meesha loo yaqaan Catalonia. wadanka waxa ka talin jiray Embraadoriyadii Roomaanka. kadib xilligii qarnigii afraad waxa qabsaday mid ka mid ah qabaa'ilka Jarmaanka kuwaas oo loo yaqaanay French. wadankan maanta loo yaqaan Faransiiska waxa uu midoobay markii ugu horeysay sanadii 486. Faransiiska waa wadan leh taariikh aad u dheer oo aan la soo koobi karin. taariikhda waxay qortaa in boqortooyada Faransiiska ama boqorada Faransiiska soo maray uu ka mid ahaa Napoleon Bonaparte oo dhowr wadan oo Yurub qabsaday. Faransiiska oo ah dalka ugu weyn wadamada ku yaala galbeedka Yurub sidoo kale waa dalka saddexaad ee Yurub oo dhan ugu weyn. dunida waxa uu ka yahay dalka 42aad ee ugu dhulka weyn. caasimadda wadanka Faransiiska waa Paris. dadka Faransiiska ahi waxa lagu qiyaasaa in ka badan 67 milyan oo ruux taas oo iyana keentay in loo aqoonsado inuu yahay dalka 20aad ee dunida ugu dadka badan iyo dalka labaad ee Yurub oo dhan ugu dadka badan. Faransiiska waxa uu ka mid yahay wadamada la yiraahdo awood ayay leeyihiin ilaa qarnigii 19aad waxa uu ka mid ahaa wadamada gumeystay dunidan. hay-adda UNESCO waxay sheegtay in dalka Faransa ay u aqoonsatay dalka afraad ee ugu dhaqanka weyn dunida. taas ayaana sabab u ah inay si joogto ah u soo booqdaan dalxiisayaal gaadhiya 83 milyan oo ruux. lacagta wadanka waa euro, seerka gaadiidku isku dhaafaana waa midigta. luqadda wadanka looga hadlaana waa French. xagga dhaqaalaha markaanu eegno Faransiiska waxa uu ka mid yahay wadamada ugu waaweyn ee dhaqaalaha leh dalkuna warshado badan ayaa uu leeyahay. sidoo kale dalxiiska ayay dawladda Faransa dhaqaalo aan yareyn ka samaysaa. xagga ciidamada Faransiiska oo ka mid ah wadamada ku jira ururka gaashaanbuurta NATO. dawladda Faransa waxay ka mid tahay dawlad dhaqaalaha badan ku bixiya dhanka ciidamada. sidoo kalena dawladda Faransa waxay xubin ka tahay 15 xubnood ee golaha ammaanka iyo ururka midowga Yurub, ururka ganacsiga adduunka WTO iyo booliska Interpol ee adduunka. waana dal haysta hubka wax gumaada ee nuclear-ka. xagga haddii aynu eegno dadka Faransiiska badankoodu waa Masiixiyiin waxa ay dalkaasi ka yihiin 94%. muslimiinta ayaa soo raaca oo dalkaasi waxay ka yihiin 4%. waxaana tiradooda lagu qiyaasaa 5 ilaa 6 milyan oo ruux. dhaqan ahaan dadka Faransiiska waxay isku eegyihiin dalka Talyaaniga waxaana dumarka Faransiiska dhaqan ahaan ay xidhaan maro u samaysan sida cambuurka oo kale oo dhanka hoose u weyn dhanka sarena u yar, halka raggooduna ay xidhaan maryo qamiiska u eeg. dhanka cunnada ama dadka cuntada ay cunaan dadka Faransiisku dhaqan ahaan waxay cunaan cunno hilib la dubay oo haddana maraq loo yeelay oo dalkaasi looga yaqaano foie gras. ugu dambeyn haddii aynu eegno xagga ciyaaraha Faransiiska kubadda cagta aad ayaa looga xiiseeyaa waxaana xulka kubadda cagta dalka Faransiiska uu qaaday koobka adduunka tiraba 2 jeer oo ahayd sanadkii 1998 oo Faransiiska lagu qabtay iyo 2018 oo koobka adduunka lagu qabtay dalka Ruushka. ciyaartoyda Faransiiska ayaa 3 gool iyo eber kaga bediyay ciyaartii kama dambaysta ahayd ee dhacday 1998 taas oo ay la ciyaareen xulka dalka Brazil. sidoo kale waxay sanadii 2018 4-2 koobka adduunka uga qaadeen xulka dalka Croatia. sidoo kale dalka Faransiiska waxa uu guulo ka gaaray ciyaaro kale oo caalami ah. waxa dalkaasi ka soo jeeda ciyaartoy fara badan oo dhanka ciyaaraha sumcad weyn ku leh. in ka badan 74 dadka dadka Faransiiska waxay ku nool yihiin magaalooyinka waaweyn. magaalada Paris iyo hareeraheeda kaliya waxa degan dad gaadhaya 12 milyan oo qof. dadkuna waxay degan yihiin guryo aad u dhaadheer. sidoo kale qaar ka mid ah dadka ku nool Faransiiska waxay xiiseeyaan in ay degaan guryo qadiima. nolosha miyiga waxa ku nool 24% dadka Faransiiska ah waa kuwa beeraley ah. cuntada Faransiiska waa mid ka mid ah cuntooyinka ugu caansan caalamka.
faransiisku waa dowlad cilmaaniya xorriyadda diintuna waa xaq dastuuri ah waxay gaadhaysaa tirada masiixiyadda kaatoliga ah boqolkiiba 65 dadka aan diinba haysan waxa ay gaadhayaan qiyaastii 25 boqolkiiba halka islaamku uu yahay 6 boqolkiiba dadka faransiiska ah daawadayaal waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka ogaateen macluumaadkan kooban ee ku saabsan dalka Faransa haddii aad ka heshay fadlan nagu soo biir oo taabo subscribe si aad u hesho warbixino joogto ah